kawaanlanimadu waa shaqo aalaaba lala xiriiriyo ragga balse qofka aad u jeedaan ma ahan nin waa gabar magaceeduna waa Leyle Ibraahim Cismaan xaqiiqdii ma ahan sanad iyo 2 sanadood inta ay halkan ka shaqaynayso waa in ka badan 10 sano marka ugu horeysa oo aad aragto way adag tahay inaad rumaysato inay qofkani tahay qof dumar ah waayo waxay xirataa aalaaba dhar la mid ah kuwa ragga kala dhinac shaqeeya kawaanka waxay sheegtay in macalinkeeda oo la yiraahdo biyo cabe uu baray sida loo jarjaro hilibka kalluunka iyada ahaan ma aaminsana in shaqadani ay tahay mid kaliya gaar ku ah ragga waxayna hoosta ka xariiqday inay xiriir walaalnimo oo qoto dheer la yeelatay xoogsatada kala tirsan kawaanka Leyla waa jaadka dumarka qaar ee la dhaqanka ragga awgeed loo bixiyo ama loogu yeero wiilo laakiin marka aad si dhow ugu fiirsato sida xeesha dheer oo ay shaqadan u fahamtay waxaad ogaanaysaa in shaqooyin badan oo ragga un looga haray ay haweenkeenu qaban karaan waa Fariid waxayna muujisaa furfurnaan iyo bashaashnimo mar walba oo ay la hadlayso inaan rageedka ku hareersan shaqo iyo wanaag aanay dhaxeeyis may waa isdhaxgalnaa leebis wax kalmid tani waxay qaadan waa ku noqotaa booqda walba oo mar arageeda loogu sheego inay tahay qof dumar ah waxayna sideyda oo kale ku qaadataa in cabaara inuu durbaba aamino hayeeshee xaqiiqdu waxay tahay Leyla uma baahna in dumar ahaan loo aqoonsado waayo si la mid ah kawaanleyda kale ayay si firfircoon u qabsataa shaqadeeda lama kulmin wax faquuq ah sida ay sheegtay diyaarna uma ahan inay isaga harto shaqadan inkasta oo weli aysan sida ay tiri gursan haddana masiirka shaqadeedu wuxuu ku tirsanaan doonaa go'aanka nolosha lamaanaheeda haweenku waa xoog aysan wax magaratadu qiimeynin sida uu yiri Maxamed Siyaad Barre waana dhab oo dumarka Soomaaliyeed waa kuwo diyaar u ah inay buuxiyaan hadba inta karaankooda ah kaalmaha ka banaan kaabayaasha dhaqan dhaqaale ee dalka weli ma la kulantay gabadhan oo kale hadda ka hor fariintaada noogu reeb qaybta commentiga muuqaalkan la wadaag asxaabtaada